loo taagayo madaxweyne lafta gareenow taageernay guusha December waa taariikh lama ilaawan dadka loo taagayo madaxweyne lafta gareenow taageernay guusha koonfur galbeed toostayo isku tiirsatay waatan tartanto isku tanaasushay waatan tashatay oo calankeeda taagtayo tallaabsatay koonfur galbeed waatan koonfur galbeed toostayo isku tiirsatay waatan tartanto isku tanaasushay waatan tashatay oo calankeeda taagtayo tallaabsatay koonfur galbeed waatan tubtiina wada loo maro waatan xukuumadu waxa ku taagan waatan tallaabada horumarka lee waatan maalinta toosu doorane madaxweyne alla madaxweyne waatan sharafay ii tahay in caawa oo 19 bishii 12aad ee la ii doortay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed inaad xafladii nagala soo qayb gashaan marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ilaahay baa mahad iska leh na gaarsiiyey noona suurtageliyey nana waafajiyey wixii inta ka dhacay iyo wixii mas-uuliyadahoo qabsoontay yaan marka ugu horeyso mahad celinayna ilaahay baa mahadle alxamdulilaahi rabbilcaalamiin marka xigto waxaan rabaa inaan si guud aan ugu mahad celiyo mas-uuliyiinta sharafta leh ee aqbalay invitationkii ee isxilqaamay ee meelaha dhaadheer ka yimid ee nagala soo qayb galay xafladdan uu ugu horeeyo kusubaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigii uu hogaaminayay oo aada og tihiin in uu u taagan yahay midnimada iyo weyneynta iyo garab istaagga dowlad goboleedka koonfur galbeed uusan hal marna ka baaqanin munaasabihii isdabajoogga ahaa ee koonfur galbeed ka jiray laga bilaabo maalintii caleemasaarka ilaa iyo intii wixii munaasabadaha aada iyo aada u mahadsan yahay guddoomiyaha iyo wafdigiisa iyo mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay oo dhan mudanayaal iyo marwooyin runtii waa laga soo sheekeeyey documentary la suubiyey waxqabadkii 2 sano ee aan soo marnay wuxuu ahaa waqti fiican oo adag oo shaqo badanna aan soo qabanay bay ahayd waxaan kaga mahad celinayaa dadka guud ugu horeeyaan wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adaha amniga oo igala shaqeeyey oo ka shaqeeyey wixii hadda arkayseen inay suurtagalaan waxa ugu muhiimsan oo waxa noo qabsoomay ay ku qabsoomeen ay ku suurtagaleen waxay ahayd midnimada iyo wadajirka iyo isku xirnaanta aan isku xirannahay shacab iyo dowladba reer koonfur galbeed qof kasta meeshuu joogo yuu mas-uuliyaddiisa ka qaadanayay yuuna nagu garab istaagaya horumarka iyo mashaariicda iyo wanaagga iyo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta iyo isdhexgalka bulshada iyo xasiloonida iyo deganaanshaha siyaasadeed iyo horumarada aan ilaahay nagu guuleeyey oo dhan waxa aan ku guuleysanay waxay ahayd wadajirka dadka reer koonfur galbeed shacab iyo dowladda sidaa la socotaan markii ugu horreysay oo aan xilkan qabanay waxaan sameynay socdaal la yidhaaho socdaalka nabadda wuxuu ahaa
socdaal aan ugu kuurgalaynay deegaanada koonfur galbeed iyo degmooyinka uu ka kooban yahay. degmooyinka koonfur galbeed waa 18 degmo, waa 3 gobol. hadda ka hor yaan horey u sheegay koonfur galbeed populationka ugu badan Soomaaliya, isteedyada Soomaaliya waaye. waxay xaq u lahayd ma suurtagelin dowladihii la soo maray. haddaan rabnaa inaan ka shaqeyno hadduu ilaahay yidhaaho inay 30 degmana noqoto, markay ugu yartahay 4 gobol ay noqoto. markaa aragtid baaxadda populationka, khayraadka iyo sida ay u buuxin karaan degmooyinkaas, meelo badan oon ognahay inay astaahilaan inay degmooyin noqdaan yaanan nasiib u helin. kuma eedayna systemkii iyo dowladihii lasoo mooday, waxaan dhihi karnaa laakiin nasiibkooda ma noqonin. sidaas darteeda 3 gobolba waa tagnay. 18 degmo maalintii aan xilkan qabanayay 13 degmo oo ka mid ah xor ay ahaayeen. 5 degmo oo ka mid ah waxay ku jireen gacanta cadowga shabaab. 13 degmo markii laga reebo 2 degmo inta kale waa tagnay. socdaalkii nabadaan ku tagnay, u kuurgalkii xaaladaha dadkaas shacabka ay ku nool yihiin baan ku tagnay. degmada ugu yar yaan waxaan tagnay 2 jeer, annaga oo u kuurgalayna dadka baahiyaha ay qabaan iyo waxa qabsoomi karo iyo wixii qabsoomi waaye, caqabada ay la qabsoomi waayeen. ilaahay baa nabad nagu geeyey, nabad nagu soo celiyay alxamdulilah. wixii aan ugu tagnay oo baahiyo ahaana wax badan baa noogu suurtagalay oo noo qabsoomay. markii aan muddo joogno kadib waxaa noo bilowday inaan ka shaqeyno arrimihii amniga, aan u istaagno, oon ka howlgalno sidii loo heli lahaa isu furista jidadka, reformka ciidamada, dhisidii ciidamada qalabka sido iyo ciidamada koonfur galbeed, u helista xuquuqda ciidamada, sidii loo tayeyn lahaa, awoodna loo siin lahaa yaan u istaagnay. wax badanna waa noo suurtagaleen annaga oo la kaashanayno hay-adaha amniga ka shaqeeyo iyo dowladaha amniga kaalmeeyo iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM iyo ciidanka koonfur galbeed. sidaas darteed markaasaa waxaa noo suurtagalay 15 degmo 15 degmo oo gacanta ka maqnayd inay hal degmo dib gacantaanada ugu soo noqoto oo shabeellada hoose ka mid ah, degmada Owdheegle. sidaasoo kale meelo badan oo degmooyin astaahilo oo kuwii hadda aan idiin sheegayay ah yaa sidaasoo kale ayagana gacantaanada kusoo noqday, oo Sabiid iyo Caanole iyo Mareere iyo Janaale iyo ay ka mid tahay. weli kamaan harin, waxaan u diyaarinay meel kasta oo la tegay oo meelahaas la qabtay ka mid ah inay helaan bulshadii wax allaale wixii adeega bulshada ahaa oo dhan uu ugu horeeyo goobihii caafimaadka, waxbarashada, biyihii, xaruntii maamulka, xaruntii maxkamadda, saldhigii, intaba inay suurtagalaan insha Allah. yaa ilaahay noo suurtageliyey, waana noo guulaystay, si fiican bayna noogu dhammaatay. haddana waa socdaa operationkii ma joogsanin iyo howlgalladii gobolka shabeellada hoose. waxaana noo qorshaysan hadduu ilaahay yidhaaho inaan arrimihii amniga meeshiisi kasii wadno markii ciidamadan iyo reformkooda iyo diyaarintooda iyo qalabeyntooda ay noo dhammaato. sidaasoo kale ciidankii aan horey u sheegnay oo 400 ahaa oo noo suurtagalay oo shabeellada hoose ciidankii ugu horreeyay loo tababaray ahaa. muddo badan markuu tababarka dhammaystay, isagoo tababar fiican qaatay, waxaan sugaynay sidii aan ku qalabeyn lahayn aan waqti dheer gelinay. waa ka shaqeynay, ilaahay baa noo suurtageliyey. ciidankii qalabeyntiisii aan wadnaa, qeyb ka mida waa qalabeynay, howlgal ay ku jiraan waa shaqeynayaan. waxayna gacan naga siin doonaan oo nagala shaqeyn doonaan arrimaha doorashooyinka. waxayna tegi doonaan deegaanada doorashooyinka ay ka dhici doonaan Baraawe iyo Baydhabo. haddana Baydhabo qeyb ka mida joogaan oo ka shaqeynayaan, qeybta kalena waxaan u diyaarinay Baraawe oo rabnaa inay tagaan. inta kale soo hartana degmooyinka loogu talagalay iyay ka howlgeli doonaan insha Allah. sidaasoo kale horumarka dhaqaalaha dowladda haddii aysan dhaqaalo lahayn
wax horumar ah ma jiraayo. marka si dowladdii ay u shaqayso waxaan dhisnay kaabayaalkii dhaqaalaha inaan xoogga saarno, dalkana aan u samayno sistamkii canshuuraha iyo sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga, loona tayayn lahaa hay-adaha dhaqaalaha iyo wasaaradda maaliyadda. shaqooyin badan ay ka qabteen. waxaan dib u bilaabi doonaa canshuurihii. waxaan ka fikiraynay inaan kaabayaalkii dhaqaalaha dhan aan dhammaystirno oo ugu horeeyaan eeraboorada iyo dekedaha iyo waxyaalihii hore oo aan horey uga soo faa'iidnay oo ahaa khayraadka ku jiro dhulka oo ah wax soo saarka beeraha, si dhaqaalaha uu kor ugu kaco. sidaas darteed marxaladihii kala duwanaa oo aan soo marnay dhaqaalaha iyo kabidi dakhliga uu ka maayey oo horey u socday, waxaad dareemaysaa meeshii aan joognay markaan imaanaynay iyo maanta meesha aan marayno. ilaahay mahaddiisa waxaa muuqdo horumar dhaqaale oo ay dareemi karto qof kasta oo reer koonfur galbeed. heer uu maraayo miisaaniyaddaanada ay markii 2018 markii loo fiiriyo iyo maanta oo 2020 ay tahay, dakhliga meesha uu maraayo miisaaniyaddaanadii 23 milyan ay gaartay. waxaan kaloo ku guuleysanay in hay-adaha dowladda say u dhan yihiin iyo shaqaalaha iyo cid kasta oo reer koonfur galbeeda ay mishaar joogto ah qaadato markay bisho dhammaato. baarlamaanka, xukuumadda, shaqaalaha, ciidamada, ilaa iyo heer aan gaarnay odayaasha dhaqanka inaan maxay ahayd sida aan isteedyada kale aan ka jirin aan gaarsiino oon siino gunno ay helaan. saas oo kale shaqaalaha reer koonfur galbeed oo dhan sidaasoo kale waxaan ku guuleysanay inaan shaqaalaysiino hay-adaha garsoorkii maxkamadihii aan dhisno oo ilaa iyo 60 qof oo maxkamadaha ka shaqeeya ay maanta aan ku guuleysanay sanadkan inay bil kasta ayagana ay xuquuqdooda helaan, mushaarkoodana ay helaan, dadka reer koonfur galbeedna ay u adeegaan si ay u helaan garsoor cadaalad ah. waxyaalaha aan guusha ka gaarnay ka mid tahay. sidaasoo kale mashaariic badan yaa noo suurta galay oo aan ka fulinay deegaanada dhan. ma ahan koonfur galbeed baydhabo kale. baydhabo waxay nasiib u yeelatay xarunta kumeel gaarka ah, laakiin annaga waxaan u taagannahay shirka annaga golaha wasiirada iyo dowladdaanada aan ku amray meel kasta oo reer koonfur galbeed ay joogaan waxay xaq u leedahay inta ay baydhabo heshay oo horumar ah iyo mashaariic ah. marka waa inay gaartaa. mission ah waxaan sameynay golaha wasiirada waad ogtihiin dad lagu kalsoon yahay oo dhalinyaro oo aqoon-yahano ah. mission ah in degmo kasta la tago, loo qayliyo, wax alaalay waxay u baahan tahayna loo qabto. mission ahaan sameynay, wuuna socdaa howlgalladaas. waana ogtihiin degmooyinka lasoo maray oo dhan sida ay ugu faa'iideen iyo mashaariicdii ka suurta galay. waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho in ay sii socoto shaqadaas insha allahu. mashaariicda ugu horeeyey runtii sida qiimaha leh aan ugu guuleysanay bay ka mid tahay mashruuca biyooley. saa ogtihiin 39,000 oo qoys ayaa ka faa'iidi doonto, wuuna bilowday. waana waxaa ka shaqayn doona ilaa iyo 5 wasaaradood yaa ka howlgeli doono. sidaasoo kale mashruuca baxnaano waxaa ka faa'iideysan doono 26,509 qoys ayaa ka faa'iidi doona ayagana. sidaasoo kale waxaa kaloo noo suurta galay oo annaga dowlad ahaan aan sameynay mashaariic badan oo hay-ada aanan bixinaynin oo dowladda annaga ay awooday koonfur galbeed oo ay ka mid tahay dhismaha madaxtooyada xudur, dhismaha madaxtooyada baydhabo, dhismaha hadda aan bilaabi rabnay madaxtooyada baraawe
oo aan ugu talagalnay in gobol kastaba madaxtooye aan ka samayno. qofka bini aadanka ah hadduusan xarun iyo xafiis iyo meel qurxan oo uu muddo ugu adeego uusan haysanin, oo markii loo yimaado oo la arko bulshada uu matalayo meesha uu ku matalayo, sharafta bini aadankay ka mid tahay. marka mashaariicda noo suurtagalay oo annaga aan sameynay oo aanan hay-adaha weydiinin iyay ka mid tahay. mashaariicdaas tirada badan oo kulligood noo suurtagalay, waxaan si goonaa aad aan ugu ammaanayaa mashruucii isxilqaanka ahaa ee ka bilowday degmooyinka oo dhan, sida degmada Baydhabo jidadka loogu sameeyey oo jidadka lagu furay, magaaladii dhan jidad loogu sameeyey. sidaasoo kalena horey uga bilowday Xudur, maxkamaddii dhismaheedii aan soo furaynay oo sanadkan noo suurta gashay iyadana isxilqaan lagu sameeyey. annaga dowladda koonfur galbeed ahna aan kabnay, shacabka reer Xudurna ay dhiseen, iyo wadooyinkii ayagana suurta galay. mashaariicda noo suurta gashay wax inta lagu soo koobi karo ma aha, oo ah intii aada aragteen iyo ka badan. waxyaalaha noo suurta galay oo horumarinta bulshada ah ama adeegyada bulshada ah, markii aan guud ahaan aan wax yar kaga kormaro, waxbarashada waa priority-ga anaga koobaad, iyo caafimaadka waxaan muhiimadda saarayna ahayd. saa la socotaan waxaan noo suurta galay oon sameynay iskoollo aan dhisnay intii aan joognay, oo ah iskoollo primary ah oo ilaa iyo 6 iskool ah, iyo iskoollo kale oo secondary oo ilaa iyo 10 iskool ah. sidaasoo kale markii intaan imaanaynay wasiirkan ka horreeyay wasiirka waxbarashada yaan wareysanay oo niri sanadkan meeqaa koonfur galbeed dugsiga sare ka baxday. wuxuu yiri 2500 oo arday baa ka baxday. waa yaabay, waa markii 2018 aan imi. koonfur galbeed sida la qiyaasayo 4 milyan iyo wax la jiro waay, 70% dhalinyaro waay. dugsi sare inay 2500 ka baxdo sax maaha. waxay ahayd inay 50,000 oo arday ay ka baxdo dugsiga sare. inkastoo aan ognahay inay waxbarashadii ay jirto oo laakiin loo aadayo kumaysan jirin markaas afgooye, degmada afgooye oo ceelasha biyaha iyo degmadaba imtixaanka la qaadatay ku gashay gobolka Banaadir. waa si wasiirka iisoo gudbiyey warbixinta. arrinta iyadii waa joojinay. waxaan go'aansanay maalinkaas laga bilaabo inaan waxbarashada aan tayeyno, aanan wax ka bedelno ardayda baahida culayska jiro oo caqabada ku ah waxbarashada, inaan focus ka saarno oo niraahno maxaa jiro oo ardayda ay iskoolka u tagi laayihiin. runtii dadaallo badan waa la sameeyey oo waa garan kartaan adinkaba. degmooyinka qaarkood intay kasoo tagaan iyo waxay tagaan dadka reer koonfur galbeed 40% gobolka Banaadir oo ay qaraabadoodii iyo ehelkooda u tagaan si ay uga helaan waxbarasho dugsi sare ah. marka sidaas darteed waxaan go'aansanay in aan degmo kasta ka sameyno dugsigii sare. degmooyin badan aan ku guuleysanay oon dhagax dhignay, laga bilaabo ceelbarde, Xudur way lahayd dugsi sare, waajid ilaa diinsoor, Baydhabo way lahayd, shabeellada hoose oo dhanna saas oo kale. marka iskoolada noo suurtagalay oo secondary-ga ah yaa waxay yihiin marka 10 iskool. waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho wax dhismay iyo wax hadda dhismi doono ah oo la dhagax dhigay oo shaqadooda ay socoto. sidaasoo kale waxaa noo suurtagalay xaruntii wasaaradda waxbarashada oo aan dhagax dhignay oo iyadana isbuucan gudaheeda bilaaban doonto hadduu ilaahay yidhaaho. meeshii ardaydii secondary-ga ay ahayd 2500 maanta waxay maraysaa 14,864 arday yaan maanta maraynaa. 2500 meesheeda. waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho sanadka soo socdo inaan 30,000 arday ah ay ka baxaan dugsiga sare hadduu ilaahay yidhaaho. sidaasoo kale
dugsiga dhexe ardayda ka baxday waa 69,500 oo arday. markii la isku daro 85,000 oo arday yaa dugsi hoose dhexe iyo sareba ka baxday reer koonfur galbeed. arrimaha waxbarashada marka sidaasay priority noogu yihiin, mashaariicdaas badanaana nooga suurtagalay. sidaas oo kale caafimaadka muhiimadaasu noo leeyahay, ma in ku dheereynayo. waxaan noo suurtagalay in 1,452 qof oo shaqaale ah ay ka shaqeeyaan isbitaalada iyo wasaaradda caafimaadka, ay xuquuqdoodana helaan, shaqaalaha wasaaradda caafimaadkana ay yihiin. waxaan suurtagelinay 7 isbitaal intii aan joognay, 7 isbitaal ayaan ka suurtagelinay deegaanada koonfur galbeed iyo 15 MCH. waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho sidaas oo kale sanadkan sanadkiisa hadduu ilaahay nabad nagu gaarsiiyo inaan gaarno 2 jibaarkeeda. caafimaadkana muhiimadaas iyo ka badan aan ka sameynay insha allah. arrimaha siyaasadda runtii waxaan sameynay xasilooni siyaasadeed, waxaan sameynay siyaasadda loo dhanyahay, waxaan sameynay isku xirnaan iyo wada shaqeyn iyo midnimo, waxaan sameynay siyaasad ku dayasho mudan, waxaan la sameynay xiriir dhab ah iyo wada shaqeyn dowladda federaalka. waxaan sidaasoo kale xiriir dhab ah iyo wada shaqeyn fiican la leenahay dowlad goboleedyada. sidaasoo kale waxaan xiriir dhab ah iyo wada shaqeyn aan la leenahay international community-ga oo dhan iyo dadka soomaalida deeq-bixiyaalka ah oo soomaalida kaalmeeyo o dhan, ayagana xiriir wanaagsan iyo wada shaqeyn fiican ayaan leenahay. sidaasoo kale waxaa noo suurtagalay dhismihii golihii deegaanka oo ugu dambeysay, haddana aan wadno degmooyin cusub inaan ka bilowno sanadkan. laakiin waxa ugu horreeya noo dhismay oo aan ku guuleysanay waxay ahayd degmada diinsoor oo aan u sameynay golihii deegaanka oo 50% aan gabdho ka dhignay, laguna guuleystay. runtii meel kasta oo la joogana sharaf iyo ammaan u ah degmada diinsoor sida quruxda badan oo maamulka loogu dhisay. sidaasoo kale waxaan aada iyo aada ula soconnaa isbedelada siyaasadeed iyo horumarka siyaasadeed ee soomaaliya ay maalin walbaba tallaabo u qaadayso. waxaan kaloo diyaarinay oon u diyaar garownay doorashada dalka iyo sidii u dhaceyso. saa ogtihiin hore in kugu sheegaybo heshiiskii 17 Sebtembar la galay fulintiisii waxaan gudbinay wax allaaliya wixii koonfur galbeed looga baahnaa, annaga oo raacayna habraaci rasmiga ahaa ee lagu heshiiyey, aanna buuxinay sharuudihii laga rabay. labadii guddi iyo guddigii xalinta khilaafaadkaba inta waa gudbinay. waxayna diyaar u yihiin oy tababaro ugu jiraan inay ay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah. sidaasoo kale waxaan u diyaar garownay annaga iyo shacabka reer koonfur galbeed iyo siyaasiyiintaba iyo dhaqanka annaga odayaasha dhaqankaba iyo bulshada dhan sidii aan u heli lahayn doorasho deganaansho iyo nabad iyo xasilooni ku dhacdo oo dadka dhan ay ku wada qanacsan yihiin oo ku faraxsan yihiin ayaan u diyaar garownay. sidaasoo kale waxaan diyaar u nahay oon rabnaa inaan sameyno doorashada in aan helno qoondadii haweenka oo ahayd 30% in loo helo haweenka soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada koonfur galbeed. sidaas darteeda mudanayaal iyo marwooyin, waxqabadka koonfur galbeed ee 2 sano la soo mooday ama sanadkii hadda ugu dambeeyey, ayadoo ay jireen duruufo tiro badan, waxaad moodaa oo ay ka mid tahay fatahaadihii biyaha degmooyinka qaar fatahaadda ku sameeyey, cudurkii guud oo aan annagana si fiican u maaraynay oo COVID-19 oo adduunka dhan dib hoos u dhac ku suubiyey dhaqaalaha iyo isu socodka, annagana na saameeyey. iyaan si fiicanna aan u maaraynay, iyaan guul fiican ka gaarnay. isagana sidaasoo kale saa ogtihiin ayna sheegeen odayaasha dhaqanka oo inta joogay, annagoo intaas dhan u diyaar garownay. waxaa la gelayaa xilligii doorashada. markii doorasho ay bilaabanayso caqabadaa jiro, waxaa jiro cabashaa jirto,
waxaa jiro dhaliilaa jiro. annaga haddaan nahay reer koonfur galbeed, siyaasiyiintaanada, shacabkaanaga, dowlad goboleedkiinaan koonfur galbeed oo anigaan madax ka ahay, intaba wax cabasho oon qabno ma leh. waxaana diyaar u nahay in aan doorasho ay dhacdo, waktigeedana ay ku dhacdo, dadka soomaaliyeedna ninkii ilaahay nasiibkiisa ka dhigo uu wax noqdo, ama xildhibaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo, aan ka shaqeyno. cabirka annaga marka muxuu yahay? waa badbaadada dalka iyo dadka. cabirka annaga ma aha kursi, ama ha weynaado ama ha yaraado. kursiga maalinna waa la helaa, maalinna waa la waaya. haddii qofka maanta uu kursiga waayo, berri buu helayaa. waxaa muhiim u ah oo asad ah oo uu haystaa oo faa'iido ah xasiloonida dalka iyo nabadda. marka si haddaa maanta weyso berrita u heshid, waa inaad nabadda sii adkaysaa. kuma xirno noloshaada kan maanta weysay bas. adduunka wuu socdaa, wanaaggana waa socdaa. marka xilka iyo darajada iyo kuraastana ilaahay baa bixiyay. cabirka annaga marka waa inuu ka horeeyaa, uu ka weynaadaa, uu ka fiicnaadaa kursiga markaas la raadinayo. waa inuu noqdaa mustaqbalka ummadda soomaaliyeed iyo horumarka iyo meesha la hiigsanayo sidii lagu gaari lahaa inaan ka shaqeyno. sidaas darteed alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, maanta waa joogaan siyaasiyiintii reer koonfur galbeed oo ugu sarreysay, oo noogu jirtay dowladda federaalka ah, oo wasiiro leh, xildhibaano leh, uuna ugu wen yahay ninkii ugu ilaahay baa weyne dadka reer koonfur galbeed xilka ugu sarreeye hayay, oo ah guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiradii federaalka iyo xildhibaanadii inta laga soo dooranayay 70% waa joogaan. 30 maqanna xumaan kuma maqno, way ka soo gaari waayeen ama duruufo ayay ku hareen, waana noo soo hambaliyeen. sidaas darteed waxa aan hadda ka sheekeynayno dhanna iyo wanaag iyo horumar iyo midnimadan iyo cabasho la-aantaana waxa ay ku suurto gashay waa isku xirnaanta iyo wada shaqaynta iyo kalsoonida joogtada ah oon isku qabno dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxda noo jirto dowladda federaalka. xiriirka iyo wada shaqaynta fiican oo kasoo jeeda dadka reer koonfur galbeed. runtii mar labaad iyo mar saddexaad waa uga mahadcelinayaa wada shaqayntaas fiican iyo kalsoonida ayna siiyeen iyo garab istaagga ay noo garab istaageen horumarada iyo shaqooyinka iyo waajibaadka annagana saarnaa ay nagu garab istaageen. aadan uga mahadcelinayna. waxaan diyaar u nahay inaan 100% deegaankiinii aan inku soo dhaweyno, aan idiin qaadino, aan idiin suubino doorasho feer ah, xor ah, xalaal ah, aada ku kalsoon tihiin, aada ku faraxsan tihiin. servicekeeda aan idiin suubino. annaga waxba ma dooranayno, ma doorashada waa la isdooranaya, ma soo xulayno. waxa wax dooranayo waa shacabkiinii, shacabkana waa idin jecel yihiin, ayagaasaa kalsoonida la jirtaa. 101 qof yaa dad dooranayso. 101gaas qofna waxay ka imaanhayaan beesha kursiga iska leh sida heshiiskii habraaca u qabo. sidaas darteed marka waana ogahay, waa ku kalsoonahay inaad adinkana ku kalsoon tihiin maamulkiina iyo shacabkiinaba. dadka shalay sida quruxda badan idiin doortay waaye, maantana kalsoonidaas oo kale inaad ka heli doontaan ayaan aaminsanahay. nin kastoo siyaasi ah oo soomaaliyeed oo rajo iyo ambition siyaasadeed leh, asagana saas oo kale ayaan usoo dhaweyneynaa. ama xil ha haayo ama yuusan haynin, albaabadanada waa idiin furan yihiin. jawi nabadeed oo aada deegaanadiina ugu noolaataan ayaan ka shaqayn doonaa insha allahu. aada iyo aada baana ugu mahadsantihiin.
sidaasoo kale waxaan rabaa maadaama aan idiin sheegay inaanan annaga koonfur galbeed ahaana aanan wax cabasho ah aanan qabin oo aan rabno doorashada waktigeeda inay ku dhacdo, haddana waxaan aaminsanahay inaysan jirin dad reer koonfur galbeeda oo sidaan hore u sheegay ayagana sidaasoo kale qaba cabasho inay maamulkooda ku kalsoon yihiin maamul. markii taas laga tego waxaa jiro cabashooyin kale oo siyaasadeed oo ka imaanayo doorashooyinka socda, sidii aan horeyba ugu taagnay midnimada iyo nabadeynta iyo sukeenista iyo dadaaladii dib u heshiisiineed ahayd, sidii baan ugu taaganahay oon uga shaqeynayaa aniga oo idin kaashanayo dadka reer koonfur galbeed, shacabka iyo siyaasiyiintaba, in aan meel kasta oo arrinta soomaaliya ay taallo oo xal u baahan aan hormuud ka noqdo, oon u qaadno calankii caddaa, oon ka shaqeyno in aan isu keeno dadka soomaaliyeed, inkastoo wax qabo iyo cidduu wax ka qabana uu ka tabanayana aan dhex istaagno oon nidhaahno hala wada hadlo, hala iswada qanciyo. waxay ku fiican tahay in dadka nin kasta oo soomaali ah uu kalsooni helo si uu ugu dhiirado dhismaha dalka iyo wadajirka. waxaa kaloo loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan, maadaama aan dowlad leenahay, aan dowladna nahay, in aan ku kalsoonaano dowladdaanada, in aan ku kalsoonaano dowlad goboleedyadaanada, in aan aamino annagana aan nagala rabo inaan ku qancino dadka annaga doorasho ay ku qancaan, ay ku faraxsan yihiin inaan la sameyno oon la diyaarin. soomaaliya maanta uma baahno dadka soomaaliyeed oo isla joogo walaalaha ah inay xabad dhacdo, inay colaad dhacdo, uma baahno. xabadda maanta dadka soomaaliyeed ama ciidamada soomaaliyeed ay haystaan waxay u baahan tahay haddii la ridaayo in shabaab lagu rido. soomaaliya hal cadowbay leedahay, cadowgeedana waa shabaab. nin walboo soomaali ah waajibka saaran waxaa weeye inuu u jeesto sidii shabaab laysaga celin lahaa. aanan qoriga iyo hadalkaba annaga aanan iskula soo noqonin oon horey u socono. sidaasoo kale labadan beri waxaan waa la socotaan, waxaa iska jiro warar tiro badan oo sameynaya dhiilo colaadeed. uma baahno. meesha ugu horeyso waa walaalaha annaga aan deriska nahay jubbaland, gaar ahaan coleysyadii iyo nidaamkii ka jiray gobolka gedo. runtii waxaan rabaa inaan inta ka sheego baaq nabadeed inaysan dib dambe xabad aysan oga dhicin jubbaland iyo gobolka gedo. aniga oo sidaasoo kale ku hadlayo magaciina inaan nabadeyntaas aan u istaago reer jubbaland, dib u heshiisiintii aan horey u ballan qaadnayna aan hormuud ka noqdo, aana ka shaqeeyo dadkaas walaalaha ilaahay uurkooda burcad ha isu mariya, sidaan uurkooda burcad isugu marin lahayn, inaan u istaago adinka oo aniga oo shacabka iyo dowladda reer koonfur galbeedba aan ka codsanayo aan ka wada shaqeyno kalsoonidaas. laba sababood awgeed. jubbaland waa deegaankii aan deriska ahayn, xaduudka laga bilaabo ilaa iyo xaduudka kale aan deriska nahay. dadka jubbaland degan iyo dadka degan koonfur galbeed waa hal dad, waa dad walaalo ah. laba maamul oo deris ah oo deris wanaag iyo walaalnimo naga dhexaysa waaye. mas-uuliyadda koowaad ciday ka saaran tahay marka oo berrito aaqara la warsan doono yaan nahay deriskaada way waxa ugu horeeya lagu weydiinayo. marka waa waajibna saaran, waa u istaagaynaa nabadayntooda
iyo dib u heshiisiinta iyo sidii hore loo ballan qaaday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaysan waxba ka dhicin. midda labaad oo aan rabo inaan isugu xilqaamo si gooni ah, waa ogtihiin oo aniga shaksiyadayda waxaan ka imid Jubbaland, waxaan ku dhashay beled xaawo. meesha hadda waa laisku soo duulaya laleeyahay waa aadan uga xumaa magaalada aan ku dhashay inuu mar laba dagaal ka dhaco mana rabi. waxaan inta fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta Jubbaland ugu horeeya saaxiibkay walaalkay madaxweyne Axmed. madaxweyne Axmed waa kaala shaqaynaynaa nabadda, waa kaala shaqaynaynaa Jubbaland sidii ay Jubbalandkeeda kusoo noqon lahayd, dadkaas walaalahan ay ku wada noolaan lahaayeen. umana baahna maanta in dad walaal ahoo dambe ay xabad isku ridaan oo la yidhaaho ciidan baa soo socday intuu kusoo socdaa. intii horaa nagu filan. marka insha allahu tacaala waxaana jeclahay inaad nala qaadan doontaan idinka reer Jubbaland, annaga reer koonfur galbeedahna aan isu xilqaami doono. sidaasoo kale waxaan rabaa inaan mas-uuliyad gooni iska saarno dhawaaqii dadkii konsaynka qabay ee siyaasiyiinta Soomaaliyeed ahaa ee gobolka joogay xamar oo cabashada ka qabay doorashooyinka una baahan in la isku qanciyo oo la wada hadlo. ayadana sidaasoo kale waa tii aan horey u ballan qaadnay, waa u istaagaynaa. ayadana waxa noogu muhiimsan oo rabnana waxay tahay sidii horeyba ay u ahaan jirtay inay doorasho dhacdo, nabad ku dhacdo, waktigeedina ku dhaco, ninkii ilaahay nasiibkiisa ka dhigana uu noqdo. marka doorashada meeshii ay ka bilaaban jirtay qaylada oo la gaarinay qaylo bilaabatay. marka waxaan jeclahay insha allahu in aan iyadana aan xalino. waxaan rabaa inaan halkaan aan marka ugu dambeyntii sidii horeyba loo sheegay waxaan inta tacsi uga dirayaa dadkii Soomaaliyeed ee lagu argagixisada ay ku baabi'isay galmudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. saraakiishii Soomaaliyeed oo qiimaha lahayd oo taliyaha qaybta 12aad iyo taliyihii danab iyo ku-xigeenadiisii iyo shacabkii meesha ay argagixisada ku baabi'isay, waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo dhan baan uga tacsiyeynayaa. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo, eheladii iyo qaraabadiina samir iyo iimaan allaha ka siiyo. sidaasoo kale waxaan uga tacsiyeynayaa madaxda galmudug, madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo saaxiibkay ah oo markay dhacaysay tacsida meesha joogay. qorshihiisana uu ahaa caawa in inta nala joogo hadduusan shilkaas dhici lahayn, munaasabadan inuu nagala soo qaybgalo rabay. ilaahay qadartiisa oo maanta inuu noo yimaado ay ahayd, tacsidaas darteeda nooga baaqday. asagana si gooni aan ugu tacsiyeynayaa dhacdadii foosha xumeyd oo meesha ka dhacday. ilaahay ha u naxariisto. mudanayaal iyo marwooyin, mar labaad waa isu hambalyeynaynaa. aada iyo aada u mahadsantihiin mas-uuliyiinta inta timid oo dhan, kulli cid kasta oo ka qayb qaadatay munaasabadan. waxaan rabaa inaan si gooni ah ugu mahadceliyo cid kasta oo munaasabadan ka qayb qaadatay. wax qof iyo laba iyo uu suubin kara maaha, waa wax annaga dhan aan u wada dhammayn. marka oo ugu horeeyaan ciidamada qalabka sida AMISOM, ciidanka Itoobiya nala joogo oo ammaanka aada uga shaqeeyey oo ilaa hadeertaan sugista amniga ku maqan. sidaasoo kale howlwadeenadii soo agaasimay fankii quruxda badnaa nagana farxad geliyey, nana tusaaleeyey oo si xigmadaysan noogu sheegay waxaan qabanay iyo waxa hadda aan rabnay inaan qabanay iyo midnimadaanada iyo wadajirkaanaga nagu dhiirageliyey oo noocyada kala duwan leh. gabdhihii quruxda badnaa gabayada qiimada badan akhriyey. sidaasoo kale gabdhihii kale oo ayagana dhalinyarada ahaa oo aada u dhiirageliyay oo ku faraxsanaa. intaba waa u mahad celinaynaa xafladan quruxda badan ood agaasinteen. waxaan rabaa inaan si gooni ah aan ugu mahad celiyo agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed, agaasime Cabdullaahi Cali Wakiil,
oo isku duwaha iyo isku dubaradaha arrintan guud ahaa aada iyo aada u mahadsan tahay agaasime waxaad mudan tahay shahaado sharaf way kuu dambeyn doontaa waa lagu siin doonaa shaqadaadii iyo ka badanna waa gudatay aada baa ugu faraxsanahay sida aada quruxda badan oo aada uga shaqaysay guud ahaan madaxtooyada iyo munaasabadan kelix ma ahan iyo shaqadaadaba aada baa ugu faraxsanahay aada u mahadsan tahay waxaan si gooni ah aan u maamuusi doonaa oo shahaado sharaf la siin doonaa dhalinyaro wariyayaal ah oo raggii xafladdan soo sameeyey ah oo documentarigan soo diyaariyey ah oo raggii hadda munaasabadda daadihinayay ah raggaas ayagana waxay leeyihiin shahaado sharaf waa raggii documentariga quruxda badnaa soo diyaariyey dhalinyaradaas ayagana aada iyo aada ay u mahadsan yihiin runtii dhiirigelin iyo waxay mudan yihiin shahaado sharaf way ku dheereeyay halka hadalka waxaa jooga kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan walaalkeen soo dhawow si aad kelmadahaada inta uga tiraaho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay sanadkiisa nabad iyo caafimaada nagu gaarsiiyo